iyadoo dagaalka Ukraine uu sii xoogaystay Axadii, madaxweynaha dalka Belarus Alexander ayaa xaqiijiyay in gantaalo laga soo tuuray Ukraine ay ka jawaabeen, wuxuuna ku hanjabay in ciidamada Belarus ay duulaan weyn ku qaadi doonaan waddanka Ukraine. Waxa uu madaxweynahan dhaleeceeyay madaxweynaha Ukraine in uu ka hadlay Belarus, waxaana uu sheegay in muhiim ay tahay in uu la hadlo dalka iyo dadka Ukraine ee mas'uulka ka yahay waxa ka dhacaya xilligan. Ma jiro hal askari oo Belarus ah oo jooga Ukraine. Ukraine waxay u muuqataa in Belarus ay ku riixayso howlgal gaar ah oo lagu ilaalinayo muwaadiniinteeda, ayuu yiri madaxweynaha Belarus. Waxa uu xaqiijiyay in gantaalo laga soo tuuray Belarus lagu riday saldhigyada Ukraine, wuxuuna tilmaamay tallaabadaasi inay ahayd mid qasab ah sababtoo ah dhinacyada Ukraine dhowr kiiloomitir ayay u jiraan xuduudda Belarus oo la geeyay qaybo ka mid ah gantaalo u diyaar ah in ay weeraraan Ukraine. Waxa kale oo uu qirtay in Belarus ay caawisay askarta dhaawaca ah ee Ruushka. Wasiirkii hore ee difaaca ee waddanka Ukraine ayaa sheegay in Belarus ay ku dhowdahay in ay ku dhawaaqdo dagaal ka dhan ah Ukraine. Jamhuuriyadda Belarus waxay aad ugu dhowdahay in ay ku biirto dagaalka Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine. Waxaa jira xog ku saabsan diyaarado ka mid ah Belarus oo lagu soo raray ciidamo si ay u galaan Ukraine, ayuu yiri. Sidoo kale waxa uu yiri wasiirka hore ee difaaca Ukraine, tani waa tallaabo aad u xun maadaama ay ku lug leedahay dagaalkan waddan dadka u aqoonsanaya Ukraine inay tahay qaran ay walaalo yihiin. Ukraine iyo Belarus weligood dagaal lama kulmin taariikhdooda muddo ku dhow 100 sannadood. Waxaan aaminsannahay in sababta kaliya ee go'aankaasi ahaa dalab shakhsi ahaaneed ee ka yimid madaxweynaha Ruushka, taas oo gabi ahaanba ku xiran Putin siyaasaddiisa, ayuu raaciyay wasiirka hore ee difaaca Ukraine. Belarus ayaa ku eedeysay Ukraine inay gantaalo ku garaacday dhulkeeda, waxaana Belarus ay wacad ku martay in aysan ka fursan doonin in si toos ah ay dagaalka ugu biirto. Docda kale, iyadoo maalintii afraad uu dagaalka socdo, waxaa soo baxaya warar sheegaya in 2 diyaaradood oo noocoodu yahay Ilyush Il-76 oo Ruushka leeyahay ay soo rideen nidaamka difaaca Ukraine. Ciidamada difaaca Ukraine ayaa sheegay inay soo rideen diyaaradahan, gaar ahaan mid ka mid ah waxaa lagu soo riday meel ku dhow koonfurta caasimadda Kiev. Wararka ayaa sheegaya in diyaaradahani ay wadeen ciidan soo degayay, balse ma aanay sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay ama ka badbaaday shilkaasi. Isticmaalka diyaaradaha xamuulka qaada ee Il-76 oo ay la socdaan ciidamada sida gaarka ah u tababaran oo la mid ah ciidamada Mareykanka ee Rangers ayaa loo yaqaanaa qayb ka mid ah caqiidada militariga ee Ruushka, kadib markii ay hore u soo baxeen warar sheegaya dhacdadii ugu horeysay ee Ukraine ay ku soo riday diyaaradaha noocoodu yahay Il-76. Dhacdada labaad ayaa la sheegay inay ka dhacday Zakia. Warbixintu waxay ka timid wakaaladda isgaarsiinta gaarka ah ee dowladda Ukraine. Diyaaradaha Russia ee Il-76 oo ah diyaarado waaweyn oo 4 matoor leh oo qiyaas ahaan la mid ah qaabeynta ee diyaaradaha Amerika ee C-17 waxaa loo adeegsadaa qaababka iyo sidoo kale doorarka kala duwan oo dagaalka ah, sida dagaalka elektarooniga, digniinta hore ee hawada iyo xakameynta gaarsiinta ciidamada hawada ee dagaalka iyada oo loo marayo baarashuud iyo sidoo kale degitaan toos ah garoomada diyaaradaha. Wararka ku saabsan diyaaradda la soo riday ee Il-76 ama Il-76 waxaa barbar socday sawiro la soo dhigay internetka, kuwaasoo isugu jiray kuwa ay soo qaadeen wakaaladaha wararka iyo kuwa lagu soo baahiyay baraha bulshada. Qaybo ka mid ah sawiradan ayay khubaradu militariga u aqoonsadeen inay yihiin diyaaradaha Il-76, gaar ahaan qaybta dambe. Ma ahan markii ugu horeysay oo Ukraine ay soo rido diyaaradaha Ruushka ee noocan ah. Ukraine ayaa soo riday 8 sano ka hor diyaaradahani 14 Juun sanadkii 2014. Dhacdadaasi 40 askari iyo sidoo kale 9 shaqaale ah ayaa lagu dilay. Sheegashooyinka dheeraadka ah ayaa laga yaabaa inay soo jeediyaan horumarka Ruushka in uu wajahayo iska caabin culus sidii markii hore uu qiyaasayay, laakiin macluumaadka gaarka ah ee ka soo baxaya labadan waddan ayaa ahaa mid adag in la xaqiijiyo. Axadii, Ruushka iyo Ukraine ayaa soo bandhigay khasaaraha cusub ee dhinacyadan soo kala gaaray dagaalka socda maalintii afraad, xilli dagaalka uu aad uga socday magaalada labaad ee ugu weyn waddanka Ukraine kadib markii ciidamada Ruushka ay gudaha u galeen magaaladaasi. Wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga Ukraine ayaa sheegtay in ciidamada ay khasaare xoogan soo gaarsiiyeen. Wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa la taliyaha madaxweynaha Ukraine ayaa waxa uu sheegay in ciidamadoodu ay burburiyeen kalabar gaadiidkii Ruushka ee soo galay magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ukraine. La taliyaha madaxweynaha ee dalka Ukraine waxa uu sheegay in xaaladda Ukraine aysan wax weyn iska bedelin, ciidamada Ruushkana aysan u dhaqaaqin dhanka koonfurta.
dhankiisa taliyaha guud ee ciidamada Ukraine waxa uu xaqiijiyay dilka in ka badan 3,000 oo askari oo Ruush ah iyo qabashada 2,000 oo kale. Ciidamada qalabka sida ee Ukraine waxa ay sheegeen in diiradda ciidamada Ruushka ay ku wajahan yihiin gobolada Poloshia iyo sidoo kale Ansafesk si ay u go'doomiyaan magaalada caasimadda ah ee Kiev. dhinaca kalena wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa ku dhawaaqday burburinta 975 xarumood oo ka mid ah kaabayaasha military ee Ukraine tan iyo bilowgii howlgalka military ee Khamiistii. bayaan ay soo saartay wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa ku sheegtay in ciidamadeeda qaadeen weeraro cusub oo ay ku qaadeen hubka ridada dheer ee Ukraine iyaga oo adeegsanaya gantaalada baalasha leh ee cirka iyo badda kuwaas oo ka dhan ah kaabayaasha military ee Ukraine. bayaanka ayaa lagu sheegay in xarumaha la beegsaday ka mid yihiin 23 xarumood oo laga hago gantaalada, xarumaha isgaarsiinta ee ciidamada Ukraine iyo 31 qaybood oo ka mid ah nidaamyada iyo sidoo kale gantaalada lidka diyaaradaha iyo 48 xarumood oo raadeero ah. ciidamada Ruushka ayaa sidoo kale soo riday diyaarado ah kuwa dagaalka oo ay leedahay Ukraine 7 helikobtar, 21 diyaaradood kuwa aan duuliyaha lahayn sida ay sheegtay wasaaradda difaaca Ruushka. madaxweyne Putin ayaa sheegay in ciidamada gaarka ee Ruushka loo baahan yahay inay mar waliba diyaar u noqdaan difaaca dalka. marka laga hadlayo wadamada reer galbeedka ayaa xilligan u diyaar garoobaya tallaabooyin adag oo ka dhana Ruushka iyo in daaha gadaashiisa hub laga siiyo Ukraine. qaar ka mid ah dalalka horay uga fogaaday inay qaadaan tallaabooyin ka careysiin kara Ruushka oo ay ka mid tahay Jarmalka ayaa qaaday tallaabooyin adag oo hub siinaya Ukraine, gaar ahaan gantaalada nidaamyada difaaca ee dhulka iyo kuwa ka hortaga taangiyada, maadaama dalka Ukraine xilligan aysan xulafo la ahayn NATO oo ay ku adkaan doonto in toos u difaacaan wadamada NATO. waxay isku dayayaan hadda inay hub siiyaan dalka Ukraine oo ugu yaraantii ay dheereeyaan duulaan kasta oo Ruushka doonayo in uu ku qabsado wadanka Ukraine.